Raxiim daawadayaal ku soo dhawaada maanta waxaanu bixinaynaa cashar ku saabsan suuqa sarifka lacagaha oo magaciisa yiraahdo expert option. Suuqani daawadayaasheeda qiimaha leh, suuqani horta sida aad ogtihiinba waa suuqyada digitalka ah oo sida forex, ike option, binary option, market option, expert option. waa suuqyada online marketing ah. Saas ay tahay suuqani wuxuu kaga duwan yahay suuqyada kale waxa weeyaan suuqani hab online ah uga shaqaysanaysaa, waxaana ugu yar 1 minute, 2 minute, 5 minute, 15 minute, 30 minute, 1 hour, 2 hour, 5 hour daily wuu leeyahay wax kasta. Waana sida caadiga ah oo ike optionka iyo forex oo kale ah. Kaliya suuqani wuxuu kaga baahan yahay waxoogaa yar khibrad ah, ma kaaga baahna inaad beriyo daba jiitanto, beriyo daba cararto, beriyo raadisid xogtiisa dhammaystiran. Kaliya wuxuu kaaga baahan yahay muddo yar oo kooban inaad isha u raaciso suuqa aad ogaatid istiraatiijiyadiisa. Maanta waxaa inoo sheegayaa istiraatiijiyado yaryar oo haddii aad step by step u raacdid maaragtay aad adigu ka faa'iidaysid. Okay, istiraatiijiyadaas maxay yihiin? waxa weeye structure yaryar oo haddii aynu raacno aanu noqonayno kuwa maaragtay suuqa guulaystay oo suuqa hami fiican iyo higs fiican gaadhay. Okay, haddaba aynu u guda galno si aynu waqtiga usoo koobno videogan aan lagu caadsin. Waxaynu doonaynaa haddaba in aynu soo furanno applicationki waa kan, waxaa la dhahaa expert option. Applicationki waa kaas, waxaa la dhahaa expert option. saa maraha ugu dhufato saan kugu soo baxaya. Okay, mobile baan hadda ka isticmaalaynaa, mara asaga casharka laptop laga isticmaalayana waa idin soo duubaya insha Allah. Laakiin maanta waxaan jeclaystay in maaragtay arday badan oo soo weydiisay maaragtay tirma YouTube-ka cashar soo gelisid, YouTube-ka waxa soo gelisid. Waxaan jeclaystay in ardaydaas YouTube-ka aan u soo geliyo si maaragtay ay iyaguna maaragtay uga faa'iidaan. Fadlan haddaba haddaan bilaabayaa subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ka waa dhankiina. Anigana waxaad igu haleysaan inaan idiin soo gudbiyo casharo tayo leh, wax ka faa'iidaysaan, cilmigii xambaarsan, anna aan si toos idinla tiragareynayo idin tusayo. Okay, insha Allah suuqa waynu gelaynaa. Hadda lacagta Bitcoin baan eegaynay. Saa darteed maanta waa Sabti, lacagaha furan waxa weeye lacagaha maanta furani waa lacagaha la yiraahdo stockska. Lacagaha maanta furan waa cryptocurrency-ga weeyaan, cafwan iga raali ahaada, cryptocurrency-ga maanta furan. Maadaama ay cryptocurrency-ga furan tahay waxa weeye inaynu maaragtay aynu cryptocurrency-ga aynu maanta ku qaadano practice-ka lesson 2-geena inaynu ku qaadano lacagaha caadiga oo maaragtay currency-ga caadiga oo kuwan currency-gi forex oo kala IUD iyo IUD CHF, USD CHF, IUD CAD, Euro GBP, Euro JPY, IUD USD GBP, USD CAD, NSD USD. lacagaha caadiga oo kuwaas iyo currency-ga ah. Laakiin maanta waxaa furan cryptocurrency lacagaha la dhaho. Why cryptocurrency u furan tahay? Cryptocurrency-ga waa lacagaha 7 days-ka aan xidhmin, lacagaha caadiga Bitcoin, crypto index, altcoin index, Zcash, Monero, Ripple, Litecoin. waa lacagahaas weeyaan, mana xidhmaan lacagahaasi. waa suuq weeyaan caadi oo furan 24 hours. 7 days-kana suuqaas way furan yahay, suuq xidhmaya ma jiro. Marka insha Allah istiraatiijiyada koowaad meesha ka soo eegaysaan waxay tahay waa inaad soo gashaa halkaas trendiska. Suuqu sidan uu dhigan yahay, suuqa maadaama uu suuqu sidan u dhigan yahay waxaynu eegaynaa markaas lacagta aynu doonayno. Waxaynu ku eegaynaa saddexda ilkood inay saddexdu ama cagaar wada yihiin ama casaan wada yihiin. Most muhiimadda waa inaad ka eegtaa lacagtu markay wada casaan noqotid meel kalena waa ka soo eegaysaa. maaha markaa aragtay hadda Bitcoin markay wada cagaar noqotay inaad tiraahdo Bitcoin waa buy aad ku oradid, ma fiicna. waa inaad eegtaa
step 2 lacagta jihadeeda guud waa inaad soo eegtaa kadib waa inaad u timaadaa hadda bitcoin soo maaratid iyadoo cagaar wada ahayd haddaad cagaar ku horti lahayd haddana sal wada cagaar sal wada casaan ay noqotay ayrootay lacagtaadii aad meesha dhigatay waa laga xabsan karayaa markaa eg most waxa weeye inaad soo eegtid marka hore maxaa buy ama maxaa sell ah kadib baa buy garan kartaa sellna garan kartaa okay waxaynu eegaynaa haddaba maadaama oo lacagta bitcoin aan ku jirno bitcoin marka hore waynaan soo eegnaa jihadeeda guud okay bitcoin jihadeeda guud markaynu isha ula soo raacno oo bitcoin jihadeeda guud isha ula raacno waxay inoo sheegaysaa iminka bitcoin markaynu saa usoo dhaweyno inay bitcoin goorahan ba ahayd buy uptrend ama sida forecast gudihiisa loo yaqaano uptrend bay ahayd goorahanba sida idiin muuqata goorahanba uptrend bay ahayd haddaa idiin saaro xaggan waxaa ka sheegaysaa moving average-ka or center line-kii vertical line-kii ray line-kii baa ka sheegaysaa marka waxaynu eegaynaa waxay ahayd goorahanba lacagtu waxay ahayd buy maadaama ay goorahanba ay lacagtu buy ahayd maxaynu ka faa'iidi karnaa haddaba okay lacagtu waxaan ku yiri goorahanba waxay ahayd buy uptrend ama sida u taqaanaanba uptrend bay ahayd goorahanba lacagtu okay maadaama ay uptrend ahayd waxa weeye inaan horta marka hore structure-ka aynu suuqa ku talagelinayno in aynu saxanaa ka horeysa wax walba okay waxaynu sameynaynaa structure-keena saxanaynaa ukaadii cafwan iyo raali ahaada waayo waxaan jeclahay inaa suuqa idinku aniga ila tiragareysaan oo suuq diyaarsan haddaan idinkan waxba ka faa'iidimaysaan laakiin waxaa habboon ardaygaagu inuu suuqa kula fahmo maadaama weliba hadda uu kan yahay mobile oo aad isaga dhib badan tahay in mobile wax lagu saxo haddana waxaynu eegaynaa maadaama aynu kaa dhiganay waxaynu eegaynaa suuqa hadda waxaan aragnay jihadiisu inay buy tahay okay maadaama uu suuqan jihadiisu buy tahay maxaa kaloo aynu ka dhigan karnaa ajendaheena labaad wuxuu yahay inaynu haddana soo eegno suuqan jihada uu hadda aadi rabo hadda raadi rabo waa artaan xariiqdiina waa lasoo jabsaday maadaama xariiqdii lasoo jabiyey suuqan waxaynu arkaynaa inuu sel yahay suuqani suuq sel yahay marka iskama boodaysid marka labada aragti iskama boodaysid kadib marka aragti suuqu inuu sel yahay hadda Soomaaliya iskama boodaysid markaan ku leeyahay waxa weeye lacagtii imika jiha ma jirtay ku tiri 3 dhibic bay ku dhigtay maadaama 3 dhibic cad ay ku dhigtay lacagta bitcoin waa jiha ma jirto marka haddii ku tiri lacagtu jiha ma jirto waxa weeye inaad jihada saxan ah soo aragtid marka okay den markaa saa aragtid hadda waxaa lagu soo noqday baan filayaa positionkii aynu dhiganay lacagta maadaama lagu soo noqday waa inaynu eegnaa positionka saxda ah marka aynu ka geli karno okay positionka saxda ah oo markaa aynu ka geli karno okay lacagtan imika waxaynu gelinaa sel imika $1 oo sal ah baan dhiganay lacagtan waxaynu eegaynaa halkiina $1 maaragtay aynu suuqa soo taxliilinay suuqii soo ogaanay wuxuu yahay suuqii xakan ka soo marnay suuqii si walba u soo eegnay suuqii waxaanu aragnay inuu sel yahay oo wuxuu inuu tusay suuqu inuu sel yahay okay maadaama aynu aragnay inuu suuqu sel yahay waa inaynu qaadanaa trade sell ah saan haddaba idiin sheegay suuqu iska bood maaha waa wax soo hubso wax soo arag kadib suuqa soo gal den markaa intaa soo aragtid oo intaa soo practice soo qaadatid oo intaa soo taxliilin soo qaadatid kadib baa suuqa soo galaysaa suuq gabigiisu waa 1 minute waqti kaama lumayo ha cararin ha boodboodin kaliya isku day inaad wax faa'iidid cilmina aad faa'iidid lacagna aad faa'iidid okay iminka trade binu galnay $1 baynu dhiganay si ma artay really baan wax idin tusayaa $1 baan dhiganay waxaynu faa'iidnay $1.6
saasoo la mid tahay haddaa lacaga badan dhigatid intaa inteedaba faa'iidaysaa marka guys maanta cashirkeeni maadaama uu mobile ahaa intaas haynuugu ekaado insha allah next lesson 2geena waxaynu soo dhigaynaa structure kale oo maaragtay idinkuna u baahan tihiin oo idinkuna aadan ka maarmayn annaguna noo ahaana soo dhiirigelin haddii aad like-tiin iyo subscribe-tiin naga caawisaan insha allah waa inoo iyo next week oo ku beegan isniinta soo socota si aan lacagaha caadiga currency-ga idinla tiragarayno oo u aragtaan suuqa faa'iidadiisa insha allah okay guys maanta cashirkan intaas ku yahay fadlan subscribe iyo like iyo share waa dhankiina hanaga ilaawina